muddooyinkan waxaad u maqlaynay ereyga Illuminati. dad badan ayaa micno badan ka haysan ereygaasi wuxuu yahay. muuqaalka sheekadan ayaa wax badan kaga fahmi doontaa ereygaasi wuxuu yahay, bulshada asaastay iyo muddooyinkan waxa soo shacbixiyay arrinkaasi. bulshadaasi waxay sanado badan ka hor culisay fikradda dad badan ay sheegaan inay ahayd hal urur oo qarsoodi ah ka ujeedadiisu tahay in xukumaan adduunyada ay la wareegaan sanadaha soo aadan. waxaa intaas sii dheer in ururkaasi uu yahay mid horseed u ah kacaan iyo dil khaarijin ah, balse su-aashu waxay tahay muxuu yahay Illuminati? miyayse xukumeen caalamka dhab ahaantii? bulshada Illuminati waa mujtamac qarsoon oo laga aasaasay Bavaria oo haatan ah Jarmalka, waxaana jirtay intii u dhaxaysay 1776 ilaa 1785, waxaana isku magacaabi jireen inay yihiin dad dhammaystiran. kooxdaasi waxaa aasaasay professor cilmiga qaanuunka bartay oo la oran jiray Adam. wuxuu doonayay inuu sare u qaado aqoonta caqliga si looga hor yimaado sixirka iyo saameynta ay diintu ku leedahay bulshada. wuxuu doonayay in wax ka bedelo qaabkay u shaqeeyaan dowladihii xukumi jiray Yurub, isagoo meesha ka saaraya saameynta diinta ay ku leedahay dowladda, isla markaana adduunka uu jiha cusub u jeediyo. waxaa la rumaysan yahay in kulankii ugu horeeyay ururkan ay yeeshaan uu ka dhacay Caen u dhow magaalada Ingolstadt, taariikhdu markay ahayd 1776. 5 qof ayaa xilligaasi soo saaray xeerar lagu xukumayo maamulka qarsoodida Illuminati. kooxdan ayaa diiradda saaraysay sidii saameyn ugu yeelan lahayd go'aanada siyaasadda iyo sidii meesha looga saari lahaa boqortooyinka kaniisadaha. waxay astaan ka dhigteen shimbir lagu magacaabo Minerva Owl. muxuu yahay xiriirka u dhexeeya Illuminati iyo maasuuniyadda? dalalka qaar, gaar ahaan Mareykanka, taariikh ahaan waxaa jiray dareen gooni ah oo laga qabay maasuuniyadda. sanadii 1828 waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ka dhan ah maasuuniyadda. maadaama Illuminati ay asal ahaan diiwaan gelisay maasuuniyadda, waxaa caadi ahaan laga shaki qabaa in xiriir dhow uu ka dhexeeyo. sidee ugu biiri kartaa ururkan? si aad ugu biirto Illuminati, waa in si buuxda ay kuu soo aqbalaan xubnaha kale, waa inaad hanti leedahay, waa inaad leedahay sumcad wanaagsan, kana soo jeedo qoys sumcad leh. waxaa intaa dheer in isbahaysiga Illuminati uu leeyahay nidaam heer sare ah. way cibaadaystaan ayaa la yiraahdaa, walow qaar badan aan la aqoon. waxayna adeegsadaan magacyo meelo kale laga soo qaatay si aan loo aqoonsan ay u qariyaan xubnaha kale. dukumeentiyada qarsoodiga ah ee la helay awgood waxaa la ogyahay sida xubnaha kooxda ay ugu suurta gashay inay u kala baxaan jagooyin sarsare oo ka mid ah hoggaanka Illuminati. waxay warbixinada ka soo arooriyeen dhammaan buwaagta ay haystaan, waxayna ku qoraan taxane ku aadan dhinacyada ay diintu ku leeyihiin. dhalinyarada ayaa markii dambe ballan qaaday in danahooda gaarka wax kasta ka horumarinayaan, isla markaana ay bulshada si iska wax u qabsa uga shaqeeyaan. maxay u taagan tahay isha ay adeegsadaan Illuminati? ishu waa astaan u eg 3 xagal, waana calaamad ka muuqata dhammaan kaniisadaha ku yaala daafaha caalamka iyo sidoo kale dhismayaasha kale ee maasuuniyadda iyo lacagta Mareykanka. waxaa intaa dheer in xiriir dhow ay leeyihiin maasuuniyadda. waxaa sidoo kale la xiriiriyay Illuminati oo caalam u ah xakameynta kooxda iyo xukunka adduunka. waxaa sidoo kale la xiriiriyay Illuminati oo calaamad u ah xakameynta kooxda iyo xukunka adduunka. waa calaamad masiixiyaddu ay leedahay, taa oo wax kasta aragta, waxayna u taagan tahay in eebbu arko dhammaan aadanaha. Illuminati miyaa soo xukuma adduunka? dadka qaar oo ka mid ah ay rumaysan Illuminati ay xukumaan caalamka maanta. waxaan la oran karaa xubnahoodu waa kuwo aad u adag, sirtooda waxa uu keliya dad aad u yar. ma jiraan xubno caan ah oo ka tirsan Illuminati. sanadkii 1782 Illuminati waxay ka koobnaayeen 600 oo xubnood ay ku jiraan jeneraalo Jarmal ah oo ka mid ahaa Baron Adolf ka oo gacan ka geystay istaraatiijiyadda ay ku shaqeyso Illuminati in la ballaariyo bulshadaasi. bilowgii hore ardaydii Washbarka ayaa ahaa xubnaha kaliya Illuminati ay ka kooban tahay, balse markii dambe waxaa ku soo biiray dhaqaatiir, garyaqaano iyo aqoon-yahano kale. markii la gaaray 1784 waxaa Illuminati xubno ka ahaa intii u dhaxaysay 2000 ilaa 3000. wararka qaar waxay sheegayaan in qoraankii caanka ahaa John von Goethe sidoo kale uu ku biiray Illuminati, inkastoo arrintaasi uu weli muran ka taagan yahay. maxaa loo waayay ururkaasi? sanadii 1784 ayaa Karl nin lagu magacaabo oo ahaa barasaabka Bavaria waxaa mamnuuc in la sameeyo wax xisbi ah oo si sharci ah loo aqoonsaneen. sanadkii xigana wuxuu soo saaray xeer gaar ah oo mamnuucay Illuminati. markii la xirxirayay xubnaha Illuminati ayaa waxaa la helay dhowr dukumeenti oo ku qoran yihiin arrimo kooxdaasi ay ku doodeen oo ay ka mid yihiin diin la'aanta, isqaarijinta iyo ilmaha la iska soo rido.
maxaa caan ka dhigay sheekadan laga soo bilaabo markii kooxda la mamnuucay caqiidooyinka khuraafaadka iyo ku saabsan waxay heleen sumcad baahsan waxayna ku faafaan sida dabka duurka oo kale sanadii 1797 wadaadkii caanka ah referensa ninka lagu magacaabo Jesuite wuxuu ku andacooday in bulshooyinka qarsoodiga sida Illuminateska ay kiciyeen kacaankii Faransiiska madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka George Washington waxa uu qoray warqad sanad kadib isagoo leh waxaan aaminsanahay in hanjabaad Illuminateska la xakameeyay warqad waxay gacan ka geysatay aaminsanaanta in kooxda wali ay nooshahay fikirka Illuminateska ee xukunka adduunka weligiis ma damin waliba waxaa lagu sabray filimo wax laga sameeyay heeso 1963 waxaa la daawacay muuqaal loogu magac daray Principle oo soo saaray nooc cusub fikrad ah oo loo yaqaano Disorganism dhaqdhaqaaqa wuxuu abuuray in mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo oo dadka lagu qancinayo aragtida beenta ah qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa warqado been ah u diray joornaalada iyagoo ku andacoonaya in dhacdooyinka sida dilkii madaxweynihii Mareykanka John F Kennedy ay ahaayeen shaqada Illuminateska muxuu yahay xiriir ka dhaxeeya dunida casriga ah iyo Illuminateska kuwa aaminsan aragtida New World Order waxay ku andacoonayaan inay jiraan koox dad ah oo awood u leh oo isku dayaya inay hogaamiyaan adduunka marka laga reebo dhowr madaxweyne Mareykan ah dhowr xidig oo caan ah sida Beyoncé Jay-Z ayaa la xiriiriyay kooxda inkastoo labada xidigba ay sheekada beeniyeen adi ahaan maxaa ka aaminsan tahay ururkan